roobkii khasaara ka yimi waxaynu haynaa had ilaa iyo hadda 5 qof oo dhimasho ah iyo 9 qof oo la badbaadiyo dhaawaca hodheelka Maroodi Jeex laagtiisa 7 qof baa laga badbaadiyay halkan maxaan ku dhahday laagtan marta maxkamadaha 2 caruur baa laga badbaadiyay taliska booliska nin maxaan ku dhahday waalan baa laga badbaadiyay qoysas fara badan oo guryihii maxaan ku dhahday ay waxyeeloobeen qaarkood fara badan halkan taliska booliska area-diisa waxa la geeyay maxaan ku dhahday xiriyaha ciidanka booliska magaalada xaafadda Hodan Hills aqala fara badan waliba aqala wada cusuba jingadihii iyo khasaara ku yimiyo dad fara badan baa laga saaray aad bay u shaqeeyeen ciidamada booliska ciidanka debdemiska dawladda hoose madaxdan oo dhan maxaan ku dhahday caawa waxay ku jirtay hawshan marka ugu horeysa waynu tacsiyadeynaa dadka maxaan ku dhahday ku geeriyooday waxyeeladii ka timi roobka waxaanu leenahay Ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo qoysaskoodiina waynu ka tacsiyadeynaa wax Ilaahay xad guriyaha xaafad kasta guri kasta aqal kasta waa in uu ka taxadiraa maxaan ku dhahday korontada gurigiisa ku jirta shirkaduhu waa inay mamnuucaan inaanay cid dab u gelin aan lahayn maxaan ku dhahdaa automatic switchki sida ka warqabtaan roobkii caawa daay wuxuu ortasa wasiirku sheegay 5 qof baa ku dhintay 2 leer qabsaday iyo inamo gaari 3 inoo gaari ku dhintay waan ka tacsiyeynaya ehelkii iyo qaraabadii waa maqaadir Ilaahay waxaan leenahay Ilaahay samiriyeeman ay ka siiyo anigu hal fariin ma fulay wasiirkaada ka dhameeyay waxa way dhibaatada jirta shacabka reer Soomaaliland uga digaya caawa ilaa 100 baabuurood laagihii iyo dooxiyo socda looga taaglayo ciidanka jiidaya khatara ugu badanina waxay ka imanayaan ilaa 50 baabuurood dad ku jiraan caawa ciidanka booliska ka saareen dendemiskuna ka saareen aanu inta maayirka iyo maayir ku-xigeenkii iyo xogayaa u qayleynay waxa weeyde oo iyaguna ay cagaftii waxa soo dirayeen fariintan u diray shacabka reer Soomaaliland waxa weey xil roobaad baa la galay ha ka digtoonaadaan haday yihiin laaga Hargeysa ama dooxyada iyo dhammaan jumhuriyadda Soomaaliland qofku wuxuu mas'uul ka yahay cid sido iyo naftiisa lafteedaba inaanu khatar gelin waxa weey hadaad dad halaagto de waxa weey Ilaahay baa ku arka waxa loo baahayay inay ilaalisaan dhammaan ciidamadii ka qayb qaatay haday police iyo debdemiska yihiin waxaanu leenahay dadweynuhu markay xaaladda emergency dhacdo hala soo xiriiraan saldhigyada u dhow degmooyinka u dhow iyo santarka muxuu ahaa ciidanka debdemiska ee 990 waxaan leeyahay dadweynuhu saa emergency-ga ugu soo diyaar fariinta halkan dadweynaha uga dirayna waxa weeyaan in laagaha iyo meelaha dooxyada ah laga fogaado waqtiga roobowga